dadka magaalada muqdisho waxay xaq u leeyihiin dadka Soomaaliyeed waxay helaan xaq u yeeshaan inay ayagu isxukumaan inay ayagu tashadaan inay ayagu muxuu ahaay ay dad qofka xukumaayo inay go'aan ku soo gaaraan waxay rabeen in iyo qaanuunka iyo xeerka ay degsadeen inuu ku xukumo oo ku horkaco hadduu ku horkici waayo maalintiisi ay la sugaan ha dhamaysto maalinta waqtigiisa dhamaado mid kale oo kaas inuu ka fiican yahay ay ku tuumsay inay doortaan dad badan khiyaartan meesha fadhiday qaar kale oo far badan marar badan aniga su'aal i weydiiso oo tiraaniyo adiga madaxweynaha soo ee dalkan waa joogtay magaalada hadda dadkeeda hal waxay ad leedahay xaad u waxay weyda adiga fulay xantiis ma moogaan liir marka maanan moogeyn mana liideynin mana waxaynaynin laakiin nidaamka maamul samaynta iyo baahin Soomaaliya dhibaatooyinka haysto waxa kamid ah sida isu xukumi lahayd dhibku wuxuu ka taagan yahay Soomaali sida isu xukumi lahayd oo dawlad u noqon lahayd anaga dawladnimadaas aan loo dhiibay waa bilownay waa soo sameynay intii aanan inta soo gaarin ayay naga dhamaatay waqtiga naga dhamaatay hal hayska caamka ahay oo dad badan ay ciladeeyeen oo qabyo ahay qabyadii maamulka magaalada muqdisho qabyadii uu kamid ahay haddii fursadna la sii lahayn waxa ugu horeeyaan ka bilownay ay noqon lahayd waana u taaganahay ilaa maanta dawladda joogtana waa ku dhiirigelinaynaa dadkan waa ku dhiirigelinaynaa inay istaagaan ayuu istaagaan ma shiri kartiin isuma tegi kartiin maamul ma dhisa kartiin taayina kama tasha kartiin meel ay ku bannaan tahay dastuurkana ma qabo diinta islaamka ma qabto dadnimadana ma qabo waa isu timaadeen maanta waa isu timaadeen waa joogtiin magacaas wada tashiga aad ku joogtiin qof kasta oo adinka idin kamid ah waa muxtarim shirkaanu wax ku leeyahay odayaasheenii sharafta badnaayo imaamku hogaaminay waa noo joogaan waxaan rabnaa dadkaani inay inta tashadaan ay danahooda ka tashadaan dawladnimadana xaq waajibay ku tahay horumarinteeda inay ka tashadaan laakiin haddaad ogolaatid maalin maalmaha kamid ah in lagu abuse gareeyo oo si xun lagu isticmaalo oo lagu gardaroodo oo aad tiraahdo walaalo iga dhaaf oo maalin kale haddana walaalo iga dhaaf aad tiraahdo in la sii aqbala maaha laanna gardaraysigaasi weliga uu kugu socona haddii kale dadkaani dulqaad aad iyo aad u badan ay muujiyeen waana ku ammaanaynaa waana kusii dhiirigelinaynaa weli dulqaadka inay qaataan ay ilaaliyaan laakiin ma ku dhiirinayno inay ka tanasulaan xuquuqda ay leeyihiin ma ku dhiirigelinayno xaqa ay leeyihiin oo Soomaaliya oo dhan ay heshay yes waa run wax badan waa naga qabyo dawladnimadu waa naga qabyo midda federaalka waa naga qabyo maamuladu waa noo dhiman yihiin xukunkii xamar laga qaado oo meesha la geeyay in hoos loo sii daadajiyay rabay ma sii daadagin waxa soo dhawaaqna laakiin macnaheedu ma aha waxba naga maqana meelaan fariisanayna waa sugana cid uma maqna ceelna uma qodnadii la dhihi jiray waaye danihiina adika u taagan maanta aad fursadii haysataan waa isu timaadeen wada tashi isu timaadeen war intaad tashataan waxa wanaaga ah adika idin wanaaga ah Soomaalidan u wanaaga ah ka taliya wax kasto wanaagsan ku tashataan Soomaaliyan wanaagi u yihiin tashada go'aan gaara danta ummadan iyo deegaankan waxay ku jirto go'aan ka gaara cid diidi karta cid ka hor imaan karta malaha annaguna qaarkeen siyaasiyiinta qaarkood ama kuwii hore ama kuwa maanta jooga waa laga yaabaa inayna jeclaanin oo ama dana gaar ama ra'yi gaar ay qabeen iyo waxaas inay ka hor laakiin waxaas wax oo saamax la ma ahan marka waxaan rabaa mar kale waxaan u mahad celinayaa dadkii ka soo shaqeeyay hawshan ee ayagu isxil qaaday